haddii aadan horay u aqoon dhammaan goobaha halista ah ee adduunka dacalladiis ku yaalla isla markaana ay qorshaysan tahay inaad midkood booqato, waxaad u baahan tahay inaad beddesho qorshahaaga, maadaama 10 meelood ee soo socda ay yihiin kuwa ugu halista badan dunida. In aad waddadan gaari ku waddo waa halis sababtoo ah waxaad la kulmaysaa dhul gooyo, daadad iyo dhagxaan soo daadanaya. Sannadkii 1994 ilaa 300 oo darawallo ah ayaa sannad weliba ku dhiman jiray, taas oo xaqiijinaysa naanaysta waddadan. Kuma dhiiranaysid liiska meelaha ugu halista badan dunida ee la booqdo. Waxaa jirta jasiirad ilaa 25 meel u jirta xeebta Brazil, halkaas oo dadka dalkaas ku nool aysan ku dhiiran karin in ay booqdaan, waxaana jira warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in la helay meydadka kalluumaysato doontii ay saarnaayeen dul sabaynaysa badda. Jasiiradaha halista badan waxaa la sheegaa in ay aad u halis badan tahay, iyadoo dowladda Brazil ay dadka ka mamnuucday in ay booqdaan. Yaysan ku sirin quruxda haradan. Waa mid ka mid ah meelaha aan ku habboonayn in lagu noolaado ee dunida ku yaal. Harada Natron oo ku taalla waqooyiga Tanzania ayaa waxay u eg tahay harada dabka. Xaddi sare oo magaalada Natron ah ayaa biyaha haradan ka dhigaya kuwa jirka bini'aadamka u daran. Eymykon waa xaafad yar oo ka tirsan dalka Ruushka. Xaafadan waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah meelaha ugu khatarsan ee lagu noolaado sababa la xiriira cimiladeeda oo aad u xun. Heerkulka aadka u daran ayaana suuragal ka dhigaynin in goobtan lagu noolaado. Cimilada ayaa heerkulkeedu waxa ay gaartaa 40 ilaa 90 digrii. Dooxada dhimashada waa saxare ku yaalla xadka gobolka California Nevada ee dalka Mareykanka. Waana meel aad u kulul, waa mid ka mid ah meelaha ugu kulul caalamka. Keliya tiro yar oo saxare ah ayaa ku yaal bariga dhexe iyo Afrika, kuwaasoo xilliyada xagaaga noqda kuwa aad u kulul. Heerkulka ugu sarreeya cimilada ee dooxaas wuxuu habeenkii gaaraa 108.1. Xeebtan waxay ku taallaa koonfurta Angola ee waqooyiga Namibia. Waxay ku dherersan tahay webiga Konane. Xeebta qalfoofta waxay ku jirtaa liiska meelaha ugu xun adduunka ee la booqdo sababo la xiriira cimiladeeda oo aad u xun. Waana meel ay dhif tahay in qofka ku noolaado. Cimilada, dabaylo xooggan iyo cunto iyo biyo la'aan dartood uma suuragelayso dalxiisayaasha in ay ku tamaashaadaan xeebtan.